gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa maanta kulan la qaatay golaha deegaanka ee degmada Burco oo uu horkacayay Maayir Maxamed Cabdiraxmaan Muraad. kulankan oo warbaahintu dibadjoog ka ahayd isla markaasna dhowr saacadood qaatay ayaa waxa uu ka qabsoomay xarunta baarlamaanka Somaliland. markii uu soo ilaaday kulankan ayaa waxa warbaahinta si wada jir ah uga warbixiyay nuxurka kulankan gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland mudane Baashe Maxamed Faarax iyo waliba maayirka degmada Burco Maxamed Cabdiraxmaan Muraad waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxa weeye maayirka qormaahay waa deegaankii togdheer Burco ayaa inoo yimid waxay u yimaadeen golaha waxaan sidaad ogtiin waxaa xeer 23 oo ka hadlaya gobolada waxay ka cabanayaan waxa weeye waa cashuuro iyo wax la mid ah wixii ay ka cabanayeen waa loo soo gudbiyeen xeerkan gacanta lagu hayaa marka taasaan ka wada hadlanay waxaan ka wada hadlanay Burco abaaraha xaaladda ka jirta Burco iyo dalka oo dhan marka xeerkan waa xeer gobolada oo dhan marka wixii gobolka baahidiisa si gooni ah loo eegayaa wax wada siman waa loo sameeyaa xeerku waa xeer cusub weeye hore u yaal habeendood baa lagu sameeyay golaha hor imanaya waana laga qayb galiyay gobolada oo dhan maayirada oo dhan waa wada joogeen waa laga qayb galiyay waxaan doonaynaa xeer u dhaxa gobolada oo dhan oo cid walba xaq ay leeyihiin siinaya ayaan ka wada hadalnay waana loo wada sameeyo goboladooda xaq bay wada leeyihiin in wax siman loo sameeyo marka waxaan hadii ilaahay yiraahdo xeer goboladooda anfacada soo saaray hadii ilaahay waxaan u nimi halkan kulli dan waxa loo yahay xeer kale xeer 23 ama xeer 2 in muddo cabashadiisu joogtay meelaha qaar oo gobolada qaarkood ama degmooyinka qaarkood ka cabanayay sida ugu madaxweynaha qaranka ugu mahadnaqaynayo ciddii kale soo abaabushay haddii tahay wasaaradda dakhliga iyo haddii ay tahay maartay guddigii loo xil saaray dib u eegista xeerka cabashadu ka timid gudoomiyaha guddiga Balaaki xildhibaan Balaaki iyo raggii kale xeerkaas u diyaarinay ayagana waa mahadnaqay ujeedadeedu waxay ahayd inaan ku wargalno dacwadankii xeerkaan ka keenay oo maanta golaha wakiilada hor yaala iyo wixii laga bedelay oo aan dhowr jeer iska aragnay maayirada dalka wasaaradda dakhliga iyo dhammaan wasaaradaha shaqada naga dhaxayso gudoomiyaha waa la kulanay gudoomiyaha guddiga nabadgelyada oo iminkana gacanta ku arrimaha gudaha iyo nabadgelyada oo iminkana gacanta ku haysa xeerka Balaaki xildhibaankana waa nala fadhiyay xildhibaanadana waa nala joogeen waxaanu ka cabanaynay horaanu yaanu soo gudbinay qoraan la waa ku gudbinay ayaguna gacanta lagu hayaa xeerkii midna waa lagu sameeyaa si kastaba ahaatee shacabweynaha Somaliland ayaa cabashooyin ballaadhan muddooyinkii u dambeeyay ka muujinayay golayaasha deegaanka ee degmooyinka Somaliland kuwaas oo ay ugu baaqayeen inay iska casilaan xilalka ay ka hayaan magaalooyinka Somaliland. waa Maxamed Cabdi Cabdilaahi Maxamed Andar CNA TV magaalada Hargeysa.